Assalaamu calaykum. Waa barnaamij aanu ku eegayno webiga Niil. Webiga Niil waa webiga ugu dheer caalamka wuxuuna dhex maraa qaaradda Afrika. Webiga Niil wuxuu dhererkiisu gaadhayaa 6,650 kiiloomitir wuxuuna u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah Niilka Buluugga ah iyo Niilka Cad. Magaca Niil waxaa loo malaynayaa inuu ka soo jeedo luqadda Giriigga. Waxa kale oo Giriiggii hore ay u yaqaaneen webiga Niil Aegyptos ayay u yaqaaneen, waxaana ay ka soo go'day magaca Ingiriisi ahaan loo yaqaano waddanka Masar. Sida aynu kor ku soo xusnay, webiga Niil wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah Niilka Cad iyo Niilka Buluugga. Haddaba Niilka Cadi waxa goobta aasaasiga ah ee uu ka soo bilowmo harada Victoria loo yaqaano. Waxay haradani ku taallaa ay xuduudna u noqotaa wadamada Uganda, Tanzania, Kenya. Waxay tahay haradani mid ka mid ah harooyinka ugu waaweyn Afrika. Marka webiga Niil uu ka soo baxo harada Victoria, waxaa loo yaqaan Niilka Victoria. Wuxuu socdaa ilaa 300 kiiloomitir, kadib wuxuu soo gaadhaa harada loo yaqaano harada Alberta. Kadib marka uu ka baxo harada Alberta, waxaa lagu magacaabaa Niil Alberta. Kadib waxa uu soo gaadhaa waddanka Suudaan, sidaasina wuxuu ku qaataa magaca Niilka Cad. Niilka Buluugga ahi wuxuu ka soo bilowmaa harada Tana ee waddanka Itoobiya. Waxa uu magaca Niilka Buluugga ah qaataa ama la baxaa kadib marka uu soo gaadho waddanka Suudaan. Inta ka horreysa waxaa lagu magacaabaa magaca Ababai. Kadib marka labada qaybood ee Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ahi ay kulmaan, waxay sameeyaan webiga caanka ah ee Niil. Sida aynu ognahay, webiga Niil waxa uu ku dhammaadaa oo uu ku darsamaa badda dhexe. Sida aynu ogsoonahay, nimcada Ilaahay waxay leedahay ahmiyaddeeda. Webiga Niil waxaa hareerihiisa ku nool dad aad u badan oo uu yahay meel ay ka raadsadaan irsaaqadooda sida beeraha, cabitaanka. Meelaha ugu badan ee dadku kala soo baxaan xoogsigooda waxaa ka mid ah waddanka Masar oo 2 meelood oo mayli ay ku nooshahay webiga Niil. Dadkaasi waxay degaan ahaan ka dhigteen webiga hareerihiisa. Ugu dambeyntii, webiga Niil waxaa wadaaga dowlado badan, waxaanu isaga gudbaa dhul aad u dheer. Waxaa ka mid ah dowladaha wadaaga webigan dalka Suudaan, Masar, Itoobiya, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waddanka Burundi.